السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ونعيمة جيلة محمود وحانا هاي من بكاترسن تيان سبورتين لي وحان لح فرديا حافيز كي بورتين لي يقولوا الناس إذا دوتشيتان شركة دتمر كان كسو بيري وحانها قف بوكان وحانا إليه وداكتي أو شركة داينا كسو بيري سوو أهيد كبر لي راديقة حسي أوهيقان كايو تيانس كان كايو كاترسن maadaama aan ku soo biiray aan qof jiran ahaa dad badan oo xanuunsan waan uga faa'iideeyay ana waan ka faa'iideystay xanuunada qoy waxa ka mid ahaa kaliba waxa laga hayay 7 sano wadnaha waxa laga hayay 7 sano takhaatiirtu marka uu tago oo dhiiga laga cabiro waxa la oran jiray ma naxday ma oraday maxaa wadna garaac intaan leeg waxa ku kalifay marka waxa weeyaan takhaatiir kala gedisan baan u tagay hoosaasaan deganaan jiray in badan u tagay buurtin la u tagay markas isaas la oran jiray kalidana markas waxa la oran jiray infection baa kaaga jira lagu way xanuun jireen wadna way xanuun jiray wadna garaacaga badan ba takhaatiirtu markas ay oran jiray laakiin wax kale iimay sheeg jirin shirkadan marka muddo yar ku jiray waxa ay baaray wiil yiraahdo Cabdi Xakiin oo iskaanka isaaray tiyaan sabuurtun la xarunteeda wuxuu yiri wiilkaas wadnaha xididada ku dhiiga siiyay waa daciif oo shaqaynaynin kalidana saad u sheegtay takhaatiirtu oran jireen infection baa ka jira waxaan lahaa wadna garaac saayid aan shaqaysan karin oo daalanahay oo xurtoonayo oo biyaha iska badso biyo waxba i tarinin ayaan lahaa dawada waxa la ii qoray waxa ay 3 dawo son iyo singi iyo libid bay ahayd markaan isticmaalay wax yar baan waxaan noqday xoogaa labad iyo caajis xoogaa waan dareemay laakiin ilaahay caafimaad igu siiyay waan ku biskooday dawo kalena gurigayga maba keenaba iyada iska daldalaabo iska cuna ma sha Allah ilaahay baa mahad iska leh gabar yar oo aan dhalay oo qabi jiray xanuunka gaaska la yiraahdo takhaatiirtu in badan ay dawo igu qoreen waxba oo garan jirtay ma tagi jiray ilaahay caafimaad biga siiyay dawadaas singi bas baan u gaday wala iyada bay cuntaa waxay ilahay gabadha yartaa naqas waxay ilahay daal fara badan waxay ilahay roobka duuda ay hooyay daaqadaha naga fur qabowga roobka iyo dabaysha ma dareemi jirin tahayd oo dhibsan jiray markasta roobka duuda ay dareemi jirnin hadii dhaxantu aan dareemi jirnin nooteedka aan lahayn waxay tirado hooyo marka waa gabar yar oo 14 jir ah waxaan ku bilaabay 13 sano jir waxay tiri hooyo roobka ma dareemi jirin haddana waan dareemaa waxay tiri hooyo cuntada ma cuni jirin wax baa canjeera inta uu qooyo subaxii haday mar wada caday gidrashaysa igu daadin jiray haddana ma sha Allah waxay doontay cuntaa waxay doontay cabta ma daasho wadna garaac malahan naqas ma qabto dhaxantu markay soo dhacdo bisto way soo qadad ee soo hordada wala xiriir jida guriga daaqada yar badan naga fura gabadha yarta xaaladeedu sidaas weeyaan ma sha Allah hooyada oo xanuunsan oo in badan dhakhtar geynay gaalkacyo boosaaso buurtinle Itoobiya wax dheer meelaha tulooyin fara badan baan dawada u sii dhiibay oo suurogeed hooyo inaan iskaan ka saaro waan u sii dhiibay son iyo waxaan sii dhiibay libid iyo singi iyo calcium for hooyada waxa laga hayay macaanto wadnaha madaxa iyo jirka dawadii hore soo dhibay libidi son bay ahayd waxay hooyada dawada ku biskooday caafimaad bay ilaahay u siiyay iyadoo kalena waligiiba ma arag haddana waan u sii dhibay hooyo waxa jiray buro halka gacanta kaga taalay iyadoo weyn oo xitaan garan weyn waa ka soo baxday burada hooyo xataa way ka baabaaday way firdhatay oo way ka baabaaday ma sha Allah caafimaad hooyo la ku siiyay odagay waa xanuunsan oo stroke xanuunka leeyahay ku dhacay waa u gaday oo suufi jiray suuxintii inta dawadaan 5 bilood hadda cunayo ma suuxin ma sha Allah caafimaad ilaahay ka siiyay markasta uu suufi jiray bishii dhow jeer suufi jiray haddana ma suuxo ma sha Allah marka waxa weeyaan dawada faa'iidooyinka fara badan anaga iyo familkayga iyo dad badan oo uga faa'iideeyay oo daris iyo memberkaygaba ah way ka faa'iideen caafimaadka balaaran baa laga helay ilaahay subhanahu wa ta'ala hana mahada iska leh waana fursad noogu timi guriyahayagii iyo buurtinle ma sha Allah baan leeyahay dawladda Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa chemicalka inay iska daayaan dawadooda iibsadaan guryahooda ugu timid waa fursad qaali oo dahab iyo aan la heli karinin sidaas aan kula dardaarmayaa dhamaantood Soomaali iyo reer Burtun oo dhan